بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعد وحوي عبد محمد ورسمة أو كم مقاعد ديق فانده هل كان وحنا معنته عن قوة منطقة وري كفر حان ذاتك الدقة قبل جدو يوقوي يقول جدو سيد دقموينك عبد الواق نبض بلامبل يدقنا كوهر رسم تاسنا وحوي ورد واحد بدن سويسين مدوين ربتين المقشان إن شاء الله إلهنا وأقبلها يارين تسويه شاه لسوقاته قفل بوكفيجا سوقاته fariiso u diyaar garo warkan wanaagsan marka dhageysi waxa nalal uduba harana allayle ebo walaalayaal sida ogtihiin deegaanada aan ka nimid ee mataqaanay gado iyo waqooyi gulgududba waa deegaan aad uga dambeeya Soomaaliya inteeda kale marka loo eego waxay ogtihiin caafimaadku inuu liito waxbarashadu liito mataqaanay nabadgelyadu liito horumarku liito marka maxaan u baahanahay walaalayaal waxa weeye deegaankaas in wax ka qabano way cid u maqan ma jirto cid mataqaanaa in hadda ay sugayaan ma jirto waxaad kale ogtiin Soomaaliya maanta sidoo hore ma ahan maanta Soomaaliya hadda Soomaaliya maxaa weeye hadda waa la iscunahayaa waa la isbaqahayaa waa la isjiidahayaa wax la isu reebahayaa ma jirto marka Soomaalida horena ma ahan waqtigu nama sugayo Soomaaliduna nama sugayso maanta yaa dhibaataynaya waxaana dhibaataynaya kuwii ankii dad noogu dhow dariska ah ayaana dhibaataynaya marka maxaan u baahannahay inaan diyaar garoono hawsha wax ka qabano dhibaatadana si aan uga baxno ya ilaahay weynu si caqliga talada weynu si waxaan u baahannahay maamul wanaagsan iyo madax hogaamiye fiican baan u baahannahay waxaan u baahannahay qof maal gashay deegaankiisa waxaan u baahannahay engineer waxaan u baahannahay mataqaanay dhaqaatiir waxaan u baahannahay dad mataqaanay advisors qof kasta wax qaban kara u baahannahay qofkaas marka oo saas ah yaa weeye walaalayaal waxa weeye waa adiga idaawanaya way hadda weeye adiguna waxaad ka sugaysaa waxa la qabta adigana weeye qofkii la rabay inuu wax qabto weeye marka daan u dhaadhaco in arinta dhabta sida wax loo qabanaya maanta waxa loo qabanaya maanta in waxa weeye inaan hadda maamul sameeyno oo intaan shir degdeg ku qabanno aan qabsano waxaan hormariya hadalka inta u badanaya waqooyi galgoosida degmada Caabudwa dadka ogtiin walaalayaal gobolka Gado 20 jibaar uu ka weyn yahay deegaankaas kale oo waqooyi galguduuda marka bal usoo noqonaya Gado waxaad ogtiin labadoodu inay midna maamul iyo wanaag midna ka jirin oo mid u ciidami kara maanta usoo jirin marka waxaan rabnaa meesha yar oo aan wax ka qaban karnaa marka wax ku bilowno waxaan rabnaa inaan shir ku qabanno Caabudwa oo aan mataqaanaa sida ugu dhaqsaha badan oo aan shirkaasna aan maamul wanaagsan ku soo dooranno maamulka yaa dooranayo walaalayaal weeye qabiil kuma soo keenin waxa u baahnaa maamul aan ku soo dooranno mataqaanaa qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada dadan ka soo aroorna oo doortaan ganacsatada macallimiinta culimada dhaqaatiirta odayaasha haweenka dhalinyarada qaybaha kala duwan bulshada ka keeno oo qof kastoo deegaankaas u dhashay dal idin ku joogaba soo sharaxo asagaan loo eegeyn inuu laangaab iyo laandheere yahay inuu gaaban yahay inuu madow yahay inuu cad yahay loo eegeyn marka maxaan u baahanaa walaalayaal hawshaas noogu hirgeli kartaa waxay noogu hirgeli kartaa hawshaasi oo muhiim ah inaan mataqaanaa qarashkii aruurino lacag u baahan yahay lacagtu u baahan yahay dad waxa laga yaabaa inaan dhahdaan waa malaayiin uma baahna walaalayaal malaayiin waxay u baahan tahay lacag gaaraysa haddii u badato from 10,000 ilaa 20,000 oo shirkaas ugu qabto muddo gaaban ah oo 3 week maximum bil gudaheed ah marna maamul jiitamahayo wax la soo kala jiido oo waqti badan ku dhumo intaas waxaan ku keeni karnaa aan ku qaban karnaa waa muddo u badata bil gudaheeda lacagtaan ii sheegay duubota 20,000 10,000 ilaa 50,000 oo haddaan rabnana maamulka kusii maalgelino daan sii aruurino waa nooga sii fiicanta laakiin haddaan helo 10,000 way noo hirgelaysaa insha allah waxaan rabnaa walaalayaal lacagtaas sidaan ku aruurin lahayn sida ugu dhaqso badan waxaan ugu soo dhamaysaa lacag $10 ka yarba shirkaasna waa qabsanaynaa marka haddaan kaas ku guulaysano maxay sahlaysaa inaan Gado ayadana aan u howlgalno oo qoladan hadda maamulka Caabudwa ka qabanay way noo helinayaan berri hadda nooma helin karaan kulligan booda baaba'ana waxbay noo tarayaan waxay ogtiin walaalayaal kale dadka noo madaxda ah maalin kasta siday u taagan yihiin mataqaanaa xamar u taagan yihiin oo madaxay ugu jiraan subax dambe deegaankiisana war kama hayo subax dambe waxa la dhahaa waroos ka tag inta badanna waxaan nahay dadka waxaan noqonay mataqaanaa isheeg stateless sidoo dad aan deegaan iyo midna ama lahayn deegaan waan lahayn laakiin dad aan ka warqabin baad moodaaba waxaan joognaa xilli Soomaaliya xilliyadii hore adduunka hore ma joognaa hadda Soomaalida hore ma aha walaalayaal waa la iscunahayaa hadda marka waxaan u baahanahay walaalayaal hawshaas inaan u diyaar garowno qarashkaas oo aruurino aan sidaan ugu dhaqsaha badan aan hawsha ku howlgalno hadday ugu badato inaan January nala dhaafin walaalayaal yaan ku mashquulin xamar iyo waxa ka jira iyo mataqaanaa
in ka badan waxaa joogtaa dadkeena kamid xamar iska joogaan marka waxaan rabnaa walaalayaal inaan maanta arrintaas aan u diyaar garowno maxaan helaynaa inaan daan arrintaas maamulkaas samayno magaalo iyadaa lacag taallaa hasudhaynina lacag qarashi kalaa loo sii baahanya maalintii saacid uu magacaabay maamulkii axmed ninkii gudoomiye kaan jiray axmed jaamac dhirif magaalada caawudwaaq waxay ugu deeqday 26,000 hadda wuu joogaa dadkii bixiyana way joogaan marka walaalayaal waxaan kaga baahan yahay inaan magaalo iyada qarash taalla inaan marka hore wax la sadab garayn yaa kasoo qaybgelaya shirkaas weeye marka waxaa kasoo qaybgelaya nin kasta oo mataqaana deegaankaas u dhashay waxaan ka rabnaa nimanka kale oo madaxda ahaan jiray war maanta madax ma tihiin was ogtihiin haddaad ra-iisul wasaare ahaan jirteen iyo haddaad generaal ciidan ahaan jirteen iyo haddaad wasiire ahaan jirteenba kasoo qaybgala meeshaan imaada waa deegaankiini waan lii baahaya maanta haddaad deegaankaas wax ka qabsan lahaydeen maalintii waad u noqon lahaydeen oo maanta waad tegi lahaydeen sida madaxda kale oo soomaalida umayna noqon waxaad ogtihiin waad kusoo cararteen yurub iyo mataqaana america inaad kusoo carartaan maanta fadhi kudirirka ninka ragga la yaqaano ra-iisul wasaarayaasha iyo generaalada iyo wasiiradii fadhi kudirirka fadhiya biibitooyinka fadhiyaan marka walahi saas inuu nagu dhacda ma rabno waxaan rabnaa ninkeena deegaanka u dhashay maanta xilka ka tago inuu deegaankiisa iyo dhulku ka yimid oo ku nasto oo halkaas u degaan rabnaa walaalayaal marka soomaaliya ha noolaataa dhahnin waa guulaysanaa insha allahu walaalayaal arrintaas ha loo diyaar garoobo ha loo kaco qof walba mar dhow insha allahu waxaan isku daynaa inaan aruurna lacagtaan maamulkaas uga howlgeli lahayn yurub iyo america baan ka bilowno marka hala diyaar garoobo meelaan joogno wax le soomaaliya ha guulaysto ilaahina ha nagu guuleeyo ilaah kuwa dhibka nagu hayna naga qabto soomaaliya ha noolaataan leh assalaamu calaykum waraxmatullahi